halkan inaan ku soo dhaweeyo aqoon-yahan runtii dadka yani aqoonta leh waddankeennii oo waddankii muddo badan ku sugnaa kana hadda wadana buug uu kaga sheekaynayo waddanka inuu war ahna nin Stockholmer oo reer Stockholm inuu wax yar warbixin yar oo kooban naga siiyo bal waddankii Xasan Saleebaan ayaan halkan ku soo dhaweynayaa. بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين لمانتين با وقتنا وين نقول عليه رنتي وأول ما هذا علينا يا معلن كي جيودة أصحابتي ذي هالكن يقولوا عشان تعاوى أنا جو نقول حياة حسبية ذا أوردن رونا هانتي وحنا عندوني إن كفايدي استوهالكن إن أن لوان هدي على كده صوبان دقي دونو تاريخ أما بو كهر لايا madaxweynaheena maanta Axmed Maxamed Siilaayo shantii sanadood ee uu wadanka hayay shantaas sanadood wixii taariikhdu ay ka qortay wanaag iyo dhaliilaba waxaana fiican ummad kasta waxa la yiri kartideeda iyo dhaqaalaheedu waxa uu ku xiran yahay aqoon-yahanadeedu inta uu leeyahay hadaba caawaruna ahaantii intii halka joogtaa waxa fursad u yeerateen inaan saddex kalmadood indiga taabsiyo sawirka dhabta ah ee u soo baxay muddada uu Axmed Maxamuud Siilaayo uu hayay xilka oo runtii wax si dhexdhexaad loo qoray ummadana waxa ugu muhiimsan marka uu hogaamiyuhu qof waliba madaxweyne uu noqon karaa laakiin madaxweynayaashu waxay ku kala wanaagsan yihiin quality leadership-ka waxa la yiraahdo ama habdhaqaneedka hogaamineed ee qofku leeyahay leadership style-ka waxa weeye dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ayaa lagu qiimeeyaa qof marka uu hayo xil muddadii madaxweynaha la doortay ee uu ku guuleystay doorashadii waa ay ka dhamaatay haddaba waxaa muhiim ah inay dadkeenu xisaabtamaan oo qiimeeyaan wixii runtahay u soo baxay iyadoo aanay noqonin mucaaridadu in wax walba la yiraahdo waa negative wixii dhexdhexaad ee runaabay waxaynu wax ku dhismayaan ku hagaagayaan haddaba waxaan jecelahay inaan diga taabsiyo buugga saddex fifaalo oo kamid ah waxa uu filanayay inay ka soo baxeen buuggaana uu ka warhayaa isaga in aan kamid ahay raggii qorayay uu ka warhayaa madaxweynuhu laakiin kama warhayo run ahaantii waxa uga soo baxay waxaana run ah in qofka aan laga sheegin taariikhdiisa been inaan lagu dhaleecaynin wixii aanu geysanin wixii uu geystay inaan taariikhdu qaranin haddii aan ku horeeyo dhinacii xusbigii uu hogaaminayay madaxweynuhu oo halkii uu ka soo galay madaxtinimadu maanta inoogu hogaaminayo waxa uu sharcigeena iyo dastuurkeena u dhigayaa oo ku cad qodobka 22aad ee dastuurka hadda eegtaan inaan xusbiyada waddankeenu aanay ku saleysnaan karin hab qabiil hab gobolaysi labadaba waa ka mamnuuc xusbi ku dhisan madaxweynuhu intii uu soo hogaaminayay xusbiga uu ku yimi madaxtinimada waxa dhacday in reportkii la European Union-ka loo qoray ee loo gudbiyay European Union-ku xafiis bay ku leeyihiin hargeysa waxa dhaleecaan kaga soo baxday in madaxweynihii xusbigiisii shirkii kulmiye ee ugu dambeeyay in lagu qaybiyay ergadii reero oo lagu saleeyay in saadiintii aaqiladii loo yaray taasi waxa ay muutusay dimuqraadiyadii halkii uu kaga tagay xusbigiina maanta waxa ma laha gole dhexe oo iyo guddi fulaneed oo sharciyeysan ergadii qabaylkeeda ee sutimi halkii ayay kaga tageen waana qabyo ilaa iyo maanta khilaafkii dhacay baa weli taagan waxaana uu xusbigii hogaaminayay horta sawirkaas uga soo baxay inuu ku celiyay habreera talabaad dhinaca cadaaladda markaad eegto waa arrimaha qodobada ugu waaweyn ee waddanku istaagi karo kuna hormari karo xagga cadaaladda haddaan wax yaran diga taabsiyo dhinaca cadaaladda maamulka uu ku salaysan yahay tusaale waxa buugga ugu qoran ee uga soo baxay waxa kamid ah in wasiiradii aqoonta lahaay uu doortay wasiiradii way isku jireen 100% ma yahay dadku wada qualified wasiiro badan oo aqoon leh ayuu doortay wasiiradii ugu amaanta badnaa ee dadweynuhu ma certificate-ka inuu bixiyo madaxweynuhu uu dhaaday wasiir hebel baa wanaagsan iyo kana wanaagsan wasiirada madaxweynaha ayay ka wakiil yihiin isaga ayaa doorta dadweynaha ayaa bixiya wax qabadkooda waxaan filayaa dadweynaha reer Soomaaliland anigu muddo 5 sano dheeraad ah waddankiisa joogay hadda muddo yar aad u gaaban baa waddanka jira joogay
waxa si dhexdhexaad ah runtii uga soo baxday tusaale yar oo gaaban baan diga soo qabanayaa in dadweynaha reer Somaliland ay qireen wasiiradii ugu waxqabadka badnaa in ay ka mid ka ahaayeen maxamed xaashi cilmi iyo xogayihii wasiirkii caafimaadka xog wasiirka caafimaadku wuxuu ahaa nin aqoon-yahan oo qualified oo specialist akhtara budwaha wasiirka caafimaadka Somaliland waxa uu gaarsiiyay heer aan weligeed gaarin wasaaradda caafimaadku madaxweynuhu uu casilay sabab la'aan maxamed xaashi intii wasaaradda maaliyadda uu qabtay run ahaantii nin jecel iyo nin nacab ah dhaqaalaha waddanka Somaliland intuu jiray halku gaarsiiyay cid gaarsiisay male shaqaalihii waddankana laba jeer baa loo laabay mushaaradii bridge-kii labaad ee Hargeysa oo qabyo ku ahaa dawladdii hore muddo 4 sanadoodana 100 maalmood gudahood ayuu amaah ku dhisay dibna uu bixiyay markii uu dalka qabsatay dawladdanina 4 bilood bal mushaar la qaadan intaana uu bixiyay maxamed xaashi waxay noqotay inay wada shaqeyn kar waayaan oo ka baxo meesha waxa soo raacay wasiirka Gaboosan la yiraahdo oo isaguna ahaa nin si fiican uga shaqeeyay wasaaradda arrimaha gudaha khilaafkoodii waa batay sidaas uga tagay haddaba waxaan aad barbar dhigaysaa markaan cadaaladda ka hadlayno maamulka waxaa dhacday in wasiirka ciyaaraha inuu soo hooyay fadeexad aad u weyn oo qof walba oo reer Somaliland ka maroor dilaaco anigu waxaan kamarad la daba taagnaa in ay burco ku fashilantay gobolkii Togdheer ciyaarihii gobolada waxa fashiliyay waxa ahayd dawladda waxa dhacday in ardaydii burco ka iimanaysay dhalinyaradii burco ka iimanayay kubadda burco u matalayay iyagoo laba bas kala saaran inay Hargeysa soo galeen waxa dhacday in laga waayay garoonkii kubadda inay iman waayaan in halkii lagu dajiyay ay isku laayaan waxaana la isku leeynayay ma yahayn groupise waxay ahayd qabiilad baa la isku leeynayay foolxumo ka weyneed oo maamulkeena oo la taaban karo sababta marxaati lagama wada hayn waxa weeye way dhacday mucasilin ilaa maanta ninkii waa wasiir wala dalaacsiye waliba maanta waa wasiirka dibadejinta waxa diga hadlaya waxa weeye taasi waa taa ilaa iyo maanta qodobka kala doonayeen in DFTMIA qoraalka rasmiga taariikhiisa ka soo baxday kamid ah waxa weeye iyaduna dhinaca baa mushtarka iyo kobcinta dhaqaalaha dadweynaha oo iyadana ay ka fogaatay cadaalad ahaan sida wax loo qaybiyo waxa aanu from A to Z qoraal ahaan marka waarki doontaane si cadaalada loogu soo bandhigay sagaal contract oo ka ugu yar uu yahay $2 milyan oo dollar oo ay asxaabtiisu qaadatay madaxweynaha waan si fiihi sharciga ah u soo marin dalkeena markaad eegto waxa weeye baarlamaanku dhaliil buu leeyahay baarlamaanka intii wax qabanaysa way yaraatay intii dawladdu iibsatay ayaa ku badatay run ahaantii inta yar baa meesha ka qaylisay ee daacadda ah etradoor waxaasi waa qaldan yihiin saxaafadeenu maaha saxaafad xor ah marka lagu leeyahay waa xor dawladdii baa caburisay dawladdii baa xidhay iyaga laftigooda ayaa saxaafadda laftigeeda ayaan soo deeynin wixii qofka muwaadinkii ku hadlayo oo uga baqata qaarkood in dawladdu ama laaluushka siiso ka joojiso ama si kale u ciqaabto saxaafadda laakiin waxa looga baahan yahay iyaduna inay caloosha ka xoroodo waxa haddii aad wax ka sheegto imika musuqmaasuqyada dhacaya qaar badan baa ka baqaya in ay waanan hubaa inaan TV-da qaarna soo deyn karin oo ay calooshooda moodo inay weydaarsadeen waxa dhacday oo aan imika ku hayaa arrin aan inan baa mar dhow halkan ka hadlaysay madaxda xusbigiina ka mid ah oo ka hadlaysay maxkamad buugga waxaa ku taalla ilaa iyo 400 oo qof oo Somaliland ah oo saxeexay oo haddaan liiskooda aragtaan aa wada garanaysaan madaxweynuhu si cadaaladda ka baxsan ayaa waxa uu bixiyay warshadii leerka ee Hargeysa waxa uu siiyay ganacsadaha Maxamed Aw Saciid iyo Dahabshiil iyo way qaadan karaan Maxamed Aw Saciid laakiin dastuurku sida uu dhigayo uu uguna dhaartay madaxweynuhu dadkiisa iyo ummadiisa in dariiq baa jira sharci ah oo la maro dariiqa sharciga ummadda reer Somaliland waxay marxaati ka tahay inaan la marin waxaana aan loo marin waxa weeye guddiga qandaraasyada lama geyn lama announce kareynin laguma tartamin Hargeysa club ay ku dhigantay warshad qofkii reer Hargeysa uu arkay waan soo sawiray way ku soo baxay doontaa buugga iyagana waxaabaan mar maqaal laga qoray oo lagu soo qoray jaraa'idka waddanka looga digay inaanay xoolo xaaraan qaadan Dahabshiil waa shirkad aad u weyn si xalaal ah u shaqaysata service fiican dadka u qabata
laakiin maanta inuu nidaam sharci darro ah ku qaato isaga maxamed aw siciid wax xaaraan haddii aad labadan ku soo qorto journalkana jarayd kuma soo deynayaan wax siyaan mooyane waxa weeye ganacsatada inta la leeyahay ganacsatada inta la leeyahay dariiq xaaraana inay ku qaataan looma baahna sababtu waxa weeye iyadana waa la hayaa nidaamkii ay ku kala qaateen madaxweynaha runtan dii sheegaya saxaafadda ka biqmaayo dowladda uga biqmaan waa tigayaan dhowna hadii alla ka dhigo waxaan dii sheegayaa madaxweynaha deyn bay ku lahaayeen labada ninba deyn ayay ku lahaayeen deyntii in lagu kala qaato xoolihii iyo dhulkii ummadda dhulka marka aad eegto la soo qiimeeyo hadda aragtaan intuu leeyahay dhulka laftigiisa ayaan ka yaran 2 milyan oo dollar ku fadhido warshada leerka ee Hargeysa waxa yaala xoolihii ilaa Ingiriiskii ilaa iyo dowladii siyaad barre ilaa iyo dowladii ka dambeeyay waxa weeye waa hanti ummadeed oo qiimo badan inay ku qaataan deynta isku leeyihiin waa la ogyahay intay ahayd laakiin deynta inuu madaxweynuhu iskaga reebo deyntaas madaxweynahana uma fiicna taariikhdiisa ayaan leeyahay aakhiradiisana uma fiicna ganacsatadaasna waxaan leeyahay indiimaha boona in ay ku qaadataan sifo sharci ah xoolo ummadeed arrintaasina waxay noqonaysaa arrin aan laga harin ilaa iyo inta ay dowlad walba oo kala timaada waxaan kula talinayaa xusbiyada mucaaridka wax fiican waa la qoraa barnaamij aad u fiican manifest fiican baa la qorayaa kulmiyaba uu qoray laakiin dhibaatadu waxay ka timi hirgelinteeda ayaa afrikaankii ku adkaatay waxa weeye imika dowladda Axmed Maxamed Silaayo waxa ay qabatay dhismayaal badan bay wadankii ka samaysay airportada oo inaga bixiyay ninka Kuweydiga Sheekh Digay magaalada Sheekh la yiraahdo ayaa la weydiistay lacag aad u badan buu la siiyay labada madaarba ninkaas lagu dhisay bedraagii uu bixiyay caawimadii uu dhisiyay qofku wax waa uu dhisi karaa dhismo iyo bridge haddaad dhisto maanta waad guryo wasaaradaha u dhisto waad laamiyo dhisto oo laakiin aan cadaalad iyo nidaam iyo system aanu jirin maxaa ku dhacaa way duntaa waxaasi waxa weeye dadka waxba ma aha systemka dadka waxba ah dictatorska waxay caan ku yimaadeen leeyahay 5 sanadood hore ummadda dalka dhisaan markaas waxa la yiraahdaa garoonkan kubadda u dhisay dowladdii waxay dhistay gurigan ay dhistay wasaaradii bay ka bedeshay meesha wasaaradda la dhistay dhisme dadka waxba ma soo kordhiyo waxa uu soo kordhiya dadka waa systemka oo la ilaaliyo cadaaladda oo la ilaaliyo labadaasi wadanka farahay ka baxeen wadankaas anigu waxaan ahaa taageerayaashii aad u waaweyneed kulmiye ilaa iyo maanta waa la itiriyaayo meel kaga baxay lama sheegin wiigii madaxweynuhu marayay gobolka saaxil ee doorashada wiiga ka hartaneedna waan daba socdo ana mikrofoonada ku soo dhaweynayay waxa dhacday raggii kulmiye ama ha ahaado gudoomiye ku-xigeenadii ha ahaadaan xogeeyaashii xusbiga kulmiye maanta ninkagama jiro sababtuna waxa weeye sababta la raadinaya ilaa imka question mark saarin waxa weeye madaxdii sare ee xusbiga maxay ku ciloobeen Silaayo maanta muxuu uga doortay in uu reer udub door bido oo uga tagay raggii la soo halgamay ee lacagta iyo maalka iyo dadkaba kaliya xusbiga waxa kamid ah gudoomiyaha maanta xusbiga oo aan jeclayn in halkan ka yiraahdo waa col laakiin wixii la soo baday waa ogeedeen madaxweyne xusbigiisii gudoomiyihiisii xiraaya ninka sawirkiisa sita ninka soo hada qaada xiraaya gudoomiye ku-xigeenkiisii Cabdulqaadir waa ogtay wixii ku dhacay xogayaashii kale oo dhan saasa ku dhacday maanta 70% maamulkii wadanka waxa haya reer udub hadaba waxaan ogaanaa maanta in reer udub naga saxsanaayeen markay lahaayeen Silaayaha dooranina ma beenba iyaga naga saxsanaa sababtu waxa weeye Silaayaha dooran lahaa war nidaamka udubaan raacaya waxaan ku dhaleelina male dambi ma ahaateen oo waxaad arkaysaa maanta inuu isagu wax allaali wuxuu ku dhaleeli jiray waxa kamid ah manifestadii waxa ku jiray green book gal loorin jiray ee soo bandhigtay kulmiye ee dadka u sheegi jirnay waxa kamid ah in suuqa xoolaha ee weyne lagu xanaaneeyo xoolaha marka la dhoofinayo laguna eego caafimaadkooda jaabirin ninka la yiraahdo aad bay u dhaliili jireen madaxweynuhu waxa uu dhaliili jiray qaabka loo maamulo haamaha baadroolka iyo dekada waxa uu afkiisaas laga hayaayo barigu halkan inoogu yimi laga duubo la hayaa in musuqmaasuq aad u weyn uu ka socdo xiriirka madaxtooyada iyo ka dhaxeeya iyo dekada iyo haamaha baadroolka
waxaa dhacday inuu intiiba oran jiray waan hagaajinayaa maanta saaxiibka koowaad Jaabirille iyo waa madaxweynaha wixii uu dhaliili jiray miyaa aragteen 5 sanadood ee Siilaayo wadanka haystay iyadoo la leeyahay audit ba halka maray audit ba qof ku xiray xoolihii ummadda oo la xisaabiyay wali may dhicin waxaana indileeyahay hadalka anagoo aan badinin wax badan waxa la yiraahdaa buug baa jira la yiraahdo Animal Farm buugaas ninkii qoray adduunyada oo dhan wanted buu ka ahaa luqad walba oo dunida jirta maanta macalaf Soomaali buuga waa lagu qoray buugaas Animal Farm ka beerta xayawaanka ayaa af Soomaaliga lagu yiraahdaa waxay ahaayeen xayawaan beer fala oo caanaha laga maalo oo xoolo soo saara day waxaas oo dhan nin baa haysan jiray xoolihii way tashadeen waxay ku tashadeen xayawaankii way tashadeen waxay ku tashadeen inay iska xoreeyaan ninka kan haysta waxay sameysteen heeso u gaar oo qiiro gelinayo iyagu isku maamulaan waxay sameysteen shuruuc ay isku maamulaan waxay sheegeen in nidaamkan maanta ay ku nool yihiin nidaam ka fiican oo ka wanaagsan inay yeeli karaan xoolihii xayawaankii markii dambe inqilaab bay sameeyeen meeshii bay qabsadeen marka ay qabsadeen ayaa waxay doorteen koox doofaaradu ay ku jiraan inay hoggaamiyaan kooxdii waxay soo saartay markii wax yar meeshii haysatay shuruuc sharcigii ugu horeeyay ay soo saareen wuxuu noqday in oo kamid ahaa shuruucdoodii hore in dadka oo dhan ay u siman yihiin cadaalad ay wada helayaan ay ummaduna u siman tahay waa wadan la qabsaday oo kale qodobkii way bedeleen waxay yiraahdeen markii hore qodobku wuxuu ahaa all the people are equal dadka oo dhan way siman yihiin si cadaaladaana way u silnaanayaan markii dambe qodobkii way bedeleen waxay yiraahdeen all the people are equal but some people are more equal than others dad baa jira dadka oo dhan way siman bay yiraahdeen laakiin qaar baa jira bay yiraahdeen dadka kamid ah oo ka fadilan dadka inta kale waxaan dii sheegayaa Siilaayo asxaabtiisu 5 sanadood wadanka haystay waxa ay ka heleen shaqadii ugu badneed markan leeyahay asxaabtiisu waa fahmaysaa ma afleeya waxa weeye cadaalad darrada wadanka ka dhacday waxa ugu badan in madaxweynaha oo aan weligii intii madaxweynaha soo maray ama dawlad shirtaaba aanu madaxweyne magacaabi karin agaasimo waaxid in maanta liiska waxaan ku haynaa 730 nin oo qurba jooga oo reerkiisa ah oo shaqo laga siiyay ilaa agaasimo waaxid wadanka oo dikreeto madaxweyne ku soo baxay waxay ka badan yihiin reer Soomaaliland oo dhan marka la isku soo daro marka waxa weeye taasi waxay tusaysaa in qodobkii ahaa in la bedelay dadku way siman yihiin laakiin dad baa jira dadka kale ka fadilan waana salaamantiin جزاك الله خير وأنك حسن سليمان أو وربحين يروك هو إنك سيني Somaliland أو مدة قابل كسوكي